online waa la guursaday Axmed Zaki yaa guursaday hodan online meherkeedii yaa dhacay waxaasoo dhan waa la iskala soo tagay hadda ugu dambeyn waxaa meherkoodii dhacay oo magaalada London waliba ka dhacay hodan online iyo Ibrahim offline. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan u wanaagsan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan waa anigu walaalkiin Maxamed Xasan YouTube ka daawanaysan waa tiita cad haddii cusub tahay soo dhawow subscribe channelka gambaleelkana furasay ku soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay fiidiyoona like saar waad ku maasantiin mar walba garab istaagiina joogtada sida caadi dhaqankeedna ku soo dhawaad barnaamijka dhabkaada ku falanqeyn doono siday dadweynaha ugu falceliyeen meherka hodan online iyo Ibrahim offline oo shalay ka dhacay magaalada London. Marka hore waxaan rabaa inaan idin la wadaago sida hortu dhacay meherka iyo waxa lagu meheriyay hodan online. Marka hore fiidiyogana idin la wadaagaya kadibna barnaamijka ayaan guda galeynaa. إبراهيم محمد حسين وحنكون مهريين هودن عمر فوق oo iyo wakiilatay inaan ku guuriyo ku misiyo guurkan meherkeedana yahay $20,000 meherkaas guurkaas ma bashay waa barakallahu lak anaguna hambalyaan leenahay horta meherku uu dhacay hodan online waa la guursaday Ibrahim offline iyo hodan online ooshooda way isku dhamaatay meherkina saa maqlayseen wuxuu ahaa $20,000 Mareykanka ah. Okay, markii labada qof ismehersadeen waa hodan online iyo Ibrahim offline si ogtiin hodan online waa qof saameyn leh oo baraha bulshada aad looga yaqaan marka qof baraha bulshada saameyn ku leh oo la hadal hayo mar walba oo la yaqaan markii aad guursatid falcelina ka imaanayso arooskaas marka waxaa rabaa sida looga falceliyay iyo murankii ka dhacay bal ina ila aragtaan horta laakiin hadda dhan waa la wada maseerna gabadha aanina anigu waxaan aaminsan inaan hodan online ku gardarnaayeen because ta xabad soo qaadatay madax dad ka saartay niyo kala qasab iyo guursamay meesha u dhoofinay guriga gabadha kalena meesha ka soo baxsan maantooda ay dhoofineed ee guriga aanina waa garbaadina ma gartan ka hadlay sida reality ga rabto biyaka fiiriya hadii xoolo ordo waa soo had geer hadan raacaya ma ari uu didayo oo waa soo cishin karanta oo qaato laakiin bid aadka orday ka ani qabi jiro wallahi ka dhiga soo cishin karo ninka raga qulubtiisa haduu jeedsadana ordoosa kii horena waa soo qoraya kii horena duqa ka ولا أباي فردوس وعيريش ناكتي أو نين بناك قادن كرتو أو نين كاس ناكتو أباي فردوس قرتك بحايا أباي اوكي كيريا labada qof iyaga guurkooda shiyo laakiin gabadhu qabi waxa u baran in ninkeeda la fadhiisato ee inaad arga calamiya ugu qanacsaneen maya nin haduu guur aado hada riyaalka meesha nin haduu damcanaaka inuu guursado automatically you don't have no feeling gabadhii hore jecel u baqan waa riyaalka gaseetay ilaahay afarka saa u banay laakiin nin gurigiisa ku qanacsan caruurtiisa ku qanacsan xaaskiisa ku qanacsan naa kala ma damco soo kan gabadhiisa kuma qanacsan sida daraad ayuu naakal u aaday sida daraad waxa waa inay la fadhiistaan aad shaqada inaad armiya ay qabtaan ma yaadu uu reality la ogaato naakal guuso laba door mid bana qaado waa ama waa inay la joogto weynta noqoto ninkeeda sabatay danteeda ka gaarto ama waa inay iska furto anaga horana loo furay ay danaysato iyadii hodan la ninkan isku geyso that's how it is wax u dhacay ma jiro waa dood dheer oo ay dhaxmarayso dhammaan hablo Soomaaliyeed oo ku kulmay aalada TikTok live waxay fikirkooda ka dhiibanayaan meherka hodan online iyo Ibrahim offline oo ka dhacay London waxa laga murmaayo oo laga doodayo waxay tahay in Ibrahim offline uu ka soo tagay xaas iyo caruur kale oo ku nool dalka Mareykanka wuxuuna hadda guursaday hodan online oo ku nool dalka Ingiriiska marka waxa la isku haystaa waxa waaye marka oo laga doodayo laga falcelinayo
hodan dadna waxay leeyihiin way ku qaldan tahay in nin xaas leh ay mihirsato ama guursato. qolana waxay ku doodaysaa oo difaacaysaa hodan online oo waxay leedahay hodan intay baxday ninka bistoolad kusoo qabatay xoog kuma aysan soo wadanin, asigaa kasoo tegay naagtiisa, asigaana hodan soo doortay. aan ku socono mar kale. hodan dambi waxayna ugu lahaynaan saada kuu sheegaa hodan ninkan gurigiisa inay ugu tagtay gacanta maysa kasoo qabsanin oo maysa kasoo baxsan war ilaahayna waa laga cabsadaa qabrina ummadda waa sugaa war sometime aniga waa idab daranahay sometime wallaahi qofka xaqiisa ma soo jiyo ninkan amba konton inuu kaa qabo ayaana daa qaldanayna yaceli amba leedan inuu kaa qabo $20,000 cawada lagu meeriy waana loo bagaatay iyadoo dollar videoga tiktok ka fiirso ma fahamtay marka abaayo ma laga hadlooyo waxaa laga hadlooyaa hodan dembiyaad ka galoysaa gabadhan waa u hiilin kartaa oo waa u danqan kartaa oo kaama soo horjeedi laakiin hodan inta baxday ninka gacanta kama soo qabsano guriga gabadha imaysa tagin ninkaasaa diyaaro soo goostay waa u yimid maxaad rabtaa dukaan bax maxaa rabtaa 20,000 ninkaa bax maxaa rabtaa hool taasha xira khamiiska taasha xire live tiktok videoga anaa soo geliyahay balan waay marka iyada hodan dembiga ay ku leedahay bal walaalayaalow waa liis estaayo maxay tahay ma gabadha inta ku waxay leedahay nacagaa qabtaa ma ku rabiyaa leedahay hadduu hadan diida xataa ninkaan naag kale u aadi firi haddii hadan diida xataa ninkaan naag kale u aadi lahaa. okay, waa Muno oo ayadana difaacaysa hodan online oo leh macnaha ninkan asigaa yimid, asiga lama soo xoogin, xaaskiisa lagama soo xoogin, asigaa naagtaa soo jeclaaday, wax alla waxay rabtana u sameeyey, dukaanuu u furay, $20,000 ku meersaday, khamiista aroos ugu dhigaa, taashaa loo gelinaa. okay, waa run ma aysan soo xoogin, laakiin nin waa dameer. dameerna macnaha joogso ma ahane, ish ma ahane, macnaha wax kale ma yaqaano. haddii ay hadda ka hor dib ku gubatay, maanta dambaski inay ka carartay ee hodan online, shalay waxay guursatay nin naag leh, dhibaatooyinaa ka soo gaaray, ayadoo live ka sheekeynaysaan arkay, oo weliba markii ugu dambeysay intuusan dhimanin dhan waxay taagneed sida ayada afkeeda ka sheegaysay hodan in uu furo ninkeeda. kalarkii ku dhegnaayay tiri aabihiisaa iga fujiyey, dadkaa kale iska daa, ninkaa asaa ku jecel. marka haddii taha way ogeyd oy dabkaa kusoo gubatay, maanta way ku qaldaneed nin reer leh horta inay qaadato ay guursato, inkastoo wuxuu calaf yahay, laakiin jidkaa hore usoo martay inuu dhib leeyahayna way soo aragtay. maanta naag nin leh inay guursato, nin naag leh inay guursato ma ku saxna hodan online, ayadoo heli karto nin oo nadiifa oo keligiis iska socdo, inay gabar Soomaaliyeed oo reer u dhisan ay niyad jabiso, oo weliba si public ah aroos u dhacaayo, oo meher si public loo sheegayo, oo la mehersanayo. gabadha kale waxay dareemayso way dareemi kartaa ayadaba, oo maseerkun waa xun yahay, waa ogtihiin Soomaali Maxamed, qofka hadduu maseero damage iyo dhibaatooyina soo gaaraya. okay, shariifka ku socono. adkaatay
عشان اسكولت والله يقول اسكولت والله ما يرقد بسرعه ويحكي انت مير لوجيو ماشي في النساء غرفه النساء خاصه في النساء كان قد بسرعه الله كان maxaa waxa weyn ee dad waxa qof loo tusaa jirto in ka ku jiro kan qabsan ma noqon karo subhanallah aw marka qofka adigu ku wakiil ku ah oo adigu ku bixinay aw maxay meesha fadhiisay meesha fadhiisay kartaa aw soo fadhiisay kartaa meesha waxa ninka waxa fadhiisay kartaa sheekad markay ku qabsan kartaa oo ninka soo baxdan oo meel buur ama meel magaalo tagta oo ka bixilkiin iyo qalaabida ka baxsan aan sheekada loogu talagalay inaa hor fadhiisay adiga al marxaatiga adiga fadhiiso adoo laba qof ka saxbul marxaatood iyo qofka saxbul marxaatood لكن السوشيال ميديا راح تساعد انا اكو ما بدي اركز ايه كذا اكو خلاونا واركز حاجه لكن لكن بوع بيموزي ها قرب كسو عجوزه لكن مسميسا ما تكو تقول شكون كلام ده ما بيرجع كده بس هذا شاكا وجه كل سو كله هذا شاكا وجه كل بحسه ابو الشركه مع شركه مع ممكن كده يبقى معاك ninkan shariifka ah asigana waa ku faagtisa arkaysiin wuxuu rabana wuu ku hadlay horta arooska hodan online ama mehirka hodan online ibrahim offline oo ka dhacay london wuxuu ka dhacay waxaa igu maqaal ah inuu ka dhacay guriga laki xaaji wacays fanaanada weyn laki gurigeeda ka dhaco ninkan waa nin mar walbo garab siiyo ama kasoo raacsan farax kaftan laki xaaji wacaysna mucaarada yelkadiis waaye anaga mucaarad iyo muxaafid shaqo ma kulina anaga waxa waaye dhexdhexaad wax walba ka nahay mar walba wixii macquulaan falanqeynaa marka intaanu aflagaadee ninkan iyo intaanu mucaaradnimo ee horta waxa uu ka urinayo hodan online waa in ay asxaab la tahay laki xaaji wacays meherkana sida ugu maqaala oo ka dhacay guriga wax la fadeexeysanayo oo miis ma yaalo oo asxaabta hodan iyo asxaabteeda waa fashilmeen uu leeyahay waa horta groupkaasi marka horta isku waara laba qof oo islaam oo isguursatay waaye inay isku waaraan oo wad khayr qaba kala helaan u rajayn doonaa ibrahim offline iyo hodan online kuma dheeraan doono inta war la soo dhigi karo waa la soo dhahay inta hadal la soo dhigi karana waa la soo dhahay marka idinkana wixii fikirkiina hoosa kulay noogu reebi kartiin waanu ku mahadsantiin hadduu kusoo gaaro videogan daawashadaada tani kulantideena dambe